السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxay kula tahay oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad si toos ah uga daawataan isla markaana aad uga qayb qaadataan dhinaca afkaarta qodobada aan uga hadlayno barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa maamul goboleedyada maalmihii ama muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha ay soo kordhin karaan dhinaca faa'iidada ama khasaaraha oo aan ugu talagalnay in daawadayaashu ay ka qayb qaataan si ay aragtidooda uga dhiibtaan nidaamkaas maamul goboleedyada iyo dabcan sida ay u arkaan xilligan inay aad u soo shaabaxaan maamul goboleedyo dalka Soomaaliya maadaama aysan jirin dawlad xoogan oo dalka Soomaaliya ka jirta waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo barnaamijka caawa marti iigu ah Maxamed Xaashi Cabdi Carabey oo ah madaxweynaha maamul goboleedkii bartamaha Soomaaliya oo kamid ah maamuladii ugu dambeeyay lagaga dhawaaqay isla markaana madaxweynenimadiisa lagaga caleebo saaray magaalada Nairobi khadka telefoonka ayaan daawadayaasha sidoo kale dabcan u furaynaa iyo aaladda internetka ee tvuniversal.tv inay barnaamijka aragtidooda uga qayb qaataan waxaan jeclaan lahaa inta aan khadka telefoonka u gelin oo aad soo wici kartaan wixii hadda ka bilowday barnaamijku noo bilowday inaan dhowr su'aalood weydiiyo محمد حاشي عبدي عربي oo ah madaxweynaha maamulkaas cusub ee gobolada bartamaha Soomaaliya ku soo dhaw marka hore barnaamijka aad iyo aad ayaa u mahadsantahay wadhawa walaashin insha Allah maxamed maadaama aad ka mid tahay gudoomiyaasha ama madaxweynayaasha maalmihii ugu dambeeyay lagu dhawaaqay ee gobolada Soomaaliya sideed u aragtaa inay aad u soo shaabaxaan maamulada noocan oo kala bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد runtii intii aanan gelin maaragtay su'aasha ay weydiisay ama jawaabteeda ama hawsheeda waxaan jeclaan lahaa markood inaan u mahadceliyo adiga Ridwaana kadib TV-ga Universal TV martaqaadkan maaragtay maanta noo sameeyeen oo aan uga hadlayno mowduuceena ama dawlad goboleedkan ama dawlad goboleedyada ujeedooyinkooda ama hadafkooda intaanan ka gaarin laakiin fursaddan waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iideysto runtii wadankeena waxa ka jira abaaro aad u ba'an oo dadkii Soomaaliyeed harqiyay dhinac walba gaar ahaan deegaanada aan mas'uulka ka nahay oo mas'uuliyadooda ay saaran tahay shacabka ku nool waxaan ka codsanayaa markood qurbo joogta Soomaaliyeed ku nool Yurub iyo Ameerika iyo Australia ama ku nool Afrika sida Nairobi iyo Dubai iyo meelahaas oo kale in ay u gurmadaan dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan deegaanadaas aan ka hadlayno ama Soomaaliya oo dhan waxaan kale oo aad uga codsanayaa dawladda ku meel gaarka ah in ay qayb wax ka qaato gurmadka abaaraha ee dadka Soomaaliyeed deegaanada aan hadda anaga mas'uul ka nahay runtii way geen karaan wax alaaliya waxay rabaan ama way u leeyihiin access ay maaragtay ku tagaan ama ay wax ku geeyaan waxaan aad ayagana uga codsanaynaa in arrinta ka qayb qaataan waxaan kale oo ayagana aad uga codsanayaa international community in ay dadka Soomaaliyeed oo abaaraha hayaan ay maaragtay biyo la gaaraan ay shidaal la gaaraan ay maaragtay booyadaha biyo ugu dhaansadaan runtii taas ayaa waxay tahay mid maanta loo baahan yahay gobolada kale oo koonfureed oo ay ka taliyaan xarakada shabaab ayagana waxaan ka codsanaynaa maaragtay in u sahlaan dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo deeqda maaragtay ama dadka abaaraha hayaan ay maaragtay runtii arrintaas wax uga qabtaan sababta waxa weeye wadankeennii masiibooyin ku dhacay masiibo kamid ah weeye maaragtay abaaraha marka runtii taas ayaa markuu jeclaa inaan uga faa'iideysto midda labaad su'aashaada haddaan usoo noqdo runtii waxaan aad kugu sheegayaa sida aaminsanahay aniga ama ay ila tahay ama sida jirto dhabta ah ummad maamul la'aan ama hoggaan la'aan ma socon karto Soomaaliyana sida ay la socotay 20 sano u dambeysay waxa la isku dayay in dawlad dhexe oo wadanka oo dhan isku keenta la sameeyo mar walba oo la soo sameeyana ama fursad walba oo dadkii Soomaaliyeed waqti iyo dhaqaale lagu bixiyaba haddana meel bay ka kirmisay oo mas'uuloobeen saa awgeed waxa la arkay ama soo baxay dadkii ayaga deegaanadooda maamulka u sameystay ama maaragtay fursadihii u sameystay waqtiyadaas ayada sida Somaliland Puntland oo kale in ay ka faa'iideysteen oo maaragtay guulo maaragtay ku gaareen ama nabad ay ku heleen calaaqal isxukunkooda iyo ismaamulkooda ayaga saa awgeedna gobolada koonfureed oo marka anaga aan ka soo jeednay waxaan ku khasbanaanay in maaragtay aan u sameysano deegaanada iyaga tusaale ahaan aad u aragteen in maadaama uu shaqeynayo nidaamkaas aad ku daba dayataan
of course ayaga waa number 1 macnaha fursadii indhihii koowaad oo la arkay weeye oo markii lagu baraaweeyay ay baraawayeen arrinta ayada ay ku guuleysteen marka ayaga maadaama ay ku guuleysteen annagana Soomaali ayaana ayaga la mid ah si marka saas oo kale in annagana waa maxay tusaale ahaan fikirka dadka adiga kula midka ee maamul goboleedyada ku dhawaaqay arrintan ku dhaliyay ma iyadoo ay ka qoosteen ba dawlad dhexe oo dalkii maaragtay ka jirta oo goboladii ama goboladaas ay ka soo jeedaan wax u qabata mise waxay kula tahay inay tahay fawdo oo dadku ay doonayaan in qabiil kasta uu samaysto maamul u gaar ah maya runtii horta dawlad dhexe lagama qoosan karo dawlad dhexe waa wax loo baahan yahay waa waxna loo socdo marka maamul goboleedka arkaysay maamul goboleedka markii oo la dhiso ama la nidaamiyo kadib ay dawladda dhexe ayaga u gudbi doona sida la socoto dastuurka dawladda federaalka ah wuxuu dhigayaa 2 gobol iyo wixii ka badan in ay noqon karaan maamul ay isku tashtaan ee maamulkooda samaysan karaan waxa uu dhigayaa in goboladaas 2 gobol lagu xadidayo waqtigii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay kadib marka 2 gobol oo walba ay qabaa'ilada degan iyo dadka deegaanka ku wada nool ee ayaga ku heshiiyaan oo ayaga isla gartaan in ay maaragtay maamul ay samaystaan ayaga oo ay marka ayahooda ay ka tashtaan soo wada dhaqaaqaan kadib waxa isku imaanaya Soomaaliya sala socotay markii dawladda dhexdhexaysay waxa ay 18 gobol 18 gobol hadii laba kaliya loo daayay xataa waxay noqonayaan 9 dawladood oo yar yar ama hadii maaragtay 3 iyo 4 ama 2 isku tagto hadba sidii loo xukumo marka ka bacdi waxa ka soo dhaxbixi kara dawladda dhexe oo baarlamaankeedii laakiin arinta dad badan ay isweydiinayaan Carabi waxa kamid ah marka laga hadlayo nidaamka iyo habka ay ku saleysan yihiin gobolada hadda dhismaya inay qaar fara badan laablakac ay ku samaysan yihiin iyo inay jirto xasaasiyad mararka qaar kood xataa gobolada qaar kood dadka ay wada degayaan ama ay wada degaan oo aanay soo ogoleen inay wada shaqeeyaan marka khatar soo kama iman karto marka laga hadlayo xuduudaha qabaa'ilka kala duwan ee gobolada ku wada nool hadii ay mararka qaar kood sameystaan 2 maamul isla hal gobol oo kale runtii ma yaan dhihila horta waxaan horumar ahayn runtii ma aha sababtu waxa way dadka horta sameynaya waa dad qurbaha ka tagay inta badan waa dad ama hadii kala gudihii wadanka jooga laakiin nidaamkii iyo dawladnimadii wax ka garanaya waa dad aaminsan arkay in ama qabiil oo waxba tareenin oo qabiil uu yahay 90 ilaa hadda la isku dilayay Soomaalina waxba u tareenin in uu maaragtay deegaan ama tuulo ana iskale ama saana iskale waxba tareenin oo nin walba ninka kale ka xoog badan waaye qabiil walba qabiilka kale ka adkaan waaye qof walba markuu waaqici soo arkay ama uu reality soo taabtay ayuu wuxuu dib ugu soo noqday in uu asaga iyo dadkiisa la deegaanka u sameeyo taa waxa tusaale kaaga filan hadda gobolka degmada Kalkacayo gobolka Mudug waxa ka jira 2 maamul midna waxa la Galmudug midna waxa la Puntland instead labadii maamul ba way shaqeeyaan wax dhiba oo maamul ku saabsan ilaa hadda wali kama dhicin taa waxa ku cadeynaysaa magaalo walba hadii 2 qabiil ama 2 dad oo kala degan isaas oo kale heshiis u gaaraan in guul ay noqonayso maamulada qaar kood sida maamulkaaga oo kale oo adiga maaragtay madaxweyne lagu doortay waxaad ka mid tahay dadka qurba jooga ah oo maaragtay ku nool salahan magaalada Leicester oo kale horeyna waxaad uga mid ahay dadkii shirkii Leicester arrimaha qurba jooga xilligii laga hadlayay iyo isbahaysiga Asmara lagu soo dhisay maxaa qaban kartaa mar hadii adigii aadan ku nooleen gobolada aad leedahay madaxweynahan u ahay su'aal fiican waaye runtii deegaanka oo socnaa waan joognaa oo hadda nidaamka uu jooga uu ka shaqeeyaa dad wakiila ayaa maaragtay noo jooga oo shaqada si hoos u wada waxaa ka taliya meesha haddeer nidaamka culimada ee Helsuno xiriir ayaa noo dhaxeeya oo wada hadalnaa waan u soconaa annaga mar dhow tagi doonaa insha Allah hadda waan rabnay inaan tagno si dhaba muxuu markaan tagayna Nairobi ujeedadana ma ahayn in maamulkan Nairobi ku dhisno ama Nairobi maaragtay aan ku yeelan laakiin markii duruufo jira badan oo guud ay dhaceen ayaa odayaasha u dhashay deegaanada Central State oo Nairobi nala joogay markaasna uqaashi meesha joogtay ay dadweynihii kale oo nala joogay Nairobi iyo koox qurba joog anagoo ah oo ka tagnay Ingiriiska ayaa go'aankii wuxuu ka soo baxay in meesha dawladda lagu dhiso waan geenina gudaha insha Allah nidaamkan federaalka ama gobolada Soomaaliya ee xilligan maamulada maaragtay ku dhawaaqay ama maamulada qaar kood shaqeynayaba iyo arinta ku saabsan qabyaaladda oo mararka qaar kood khatar ku ah xasiloonida iyo nabadda meelo fara badan oo maaragtay dadka rayidka ay ku nool yihiin sidee u wada shaqeyn karaan
runtii horta qabiilka waa wax jiro ilaahay casa wajal ana maaragtay ayadda quraanka noogu sheegay qof walbana qabiil uu ilaahay ka abuuray ama maaragtay uu ka dhigay laakiin wax dhibka jiro ama dhibka maaragtay Soomaalida haysto waxa weeye waa erag hadda sheegayso qabyaalada ama qofkii in qabiil lagu colaadiyo ama lagu yeeso ama lagu dilo ama wax la mid Soomaalida sida la socotaba deegaanada hadda aan ka hadlayno waxay ka mid tahay deegaanada burburka Soomaaliya oo ka soo bilowday gobolada dhexe ee Soomaaliya waa meelaha ugu horeeya oo dadka Soomaalida geljiraha ay isku leen jireen ilaa muddo ilaa iyo muxuu ahaa ii sheeg ay isku soo leen jireen wax badan waqtigii dawladda dhexe ay jirtay sanado badan isku leenayeen kadib islaayeen waxa la socotaa in deegaanadaas dagaal qabiil inta badan ugu dambeeyay muddo hore sababaha keenna waxa dadka meelahaas ku nool intooda badan waxay arkeen ama darseen qabyaaladu inay waxba ahayn ama qof in qabiil loo ximiyo ama qof qabiil in loo dilo inuu waxba tirin khadadka teleefanadan u gudbi doonaa laakiin waxaan jeclaan lahaa oo kale inaan ku weydiiyo ilaa iyo hadda maxaad qabateen maamulkiina oo la taaban karaa runtii annaga wax badanna waa qabanay waxna waa qaban doonaa insha Allah waxyaabaha hadda ilaa hadda aan qabanay waxaa kamid ah runtii deegaankii waxaan ka tarnaa waxyaabo badan oo macaawima maaragtay aan ka geysanaa dad badan ayaa la xiriirnaa oo qaalo iyo ku bixinaa iyo waxa aan rabnaa inaan qabanno inaan deegaankii tagno inaan shirweyne qabanno dib u heshiisiineed shirweynaha dib u heshiisiinta aan isugu keenno dhammaan odayaasha deegaanka oo dhan dhammaan dumarka bulshada inta qaybeeda kala duwan ganacsatada culimada markay isku yimaadaan ay ka tashtaan ayahooda iyo sidii u noqon lahaayeen maamul jir ayagoo samaysan lahaayeen waxaan doonaynaa inaan u dhisno ciidamo booliska waxaan doonaynaa inaan u dhisno gole maaragtay baarlamaan oo ka kooban ilaa iyo 60 iyo 1 xubnood waxaan doonaynaa inaan u dhisno golo guurti ay leeyihiin ilaa 40 ah waxaan doonaynaa inaan golo wasiir maaragtay aan ka habeeno insha Allah ilaa 14 xubnood gaariye runtii nidaam dawli oo dhan ayaan doonaynaa inaan ka dhisno dawladda waa tahay dhammaan daawadayaasha meel kastoo ay joogaan barnaamijka waxay uga qayb qaadan karaan khadadka taleefanka si ay u dhiibtaan aragtidooda ku wajahan waxyaabaha ay soo kordhin karaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay sida weyn looga hirgelinayay iyo dabcan sida ay u arkaan guud ahaan dhibaatooyinka dalka ka jira ka soko waxyaabaha ay soo kordhin karaan iyo waxyaabaha ay u arkaan inaanay soo kordhin karin maamul goboleedyadaas waxaana sidoo kale barnaamijka dabcan caawa marti igu ah mid kamid ah madaxweynayaasha maamuladii ugu dambeeyay ee lagaga dhawaaqay dalka Soomaaliya Maxamed Xaashi Cabdi Carabey oo ah madaxweynaha maamulka gobolka bartamaha Soomaaliya waa tahay khadka taleefanka aan markan fursad siiyo qofka ugu horeeya hello السلام عليكم اوكي هلا واكو بقلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام مقعاق ولال هلا مقعاق هلا واتهاي qofkaas ma suura gelinaan filayaa maqlaysa halo waa ku maqlaa magacaaga waxa la yiraahdaa Xasan Cali baa la yiraahdaa Xasan Cali Xaaji Ciise xagee joogtaa wani London ma ka soo hadlaya ayay ku soo dhaw barnaamijka waa maxay aragtida adiga aad ka qabto waxyaabaha ay soo kordhin karaan maamul goboleedyada cusub ee Soomaaliya iyo guud ahaan aragtida aad ka qabto maaragtay arrimahan bilowday taniyo horta salaamu calaykum labadiina meesha fadhiyaba taniyo waxaan ka qabaa dadku hadday ismaamulaan haantu guntay ka tobantaabay Soomaalidu tiraahdaa qofkuna inuu familigiisa ka bilaabo oo xilba waajiba intaan horta mujtamaca u taginba qofka aan reerkiisa iyo caruurtiisa aan wanaag iyo ahsaan iyo ku dayni dadka kalena waxba ku kordhin maayo gartay kadibna beeshina waa ku xigta markaa waxaan qabaa arrinta Soomaaliland lagaga dayday ee ah inkastoo ay Soomaaliland aan ahayn gobol haddii beed kale xukuumay ay tahay shaqti Soomaaliya ay ka mid tahay oo imka calanka inankaasi sito shanta tilmaamaya waa mid ka mid ah iyada xorriyadeeda la soo noqoto waa dawlad dimuqraadi oo Afrikaana
arrinta maamul goboleedyada marka laakiin gobolada kale ee Soomaaliya taas iyadu Puntlandna lama mid aha koonfurna lama mid aha laakiin dawashadii Soomaaliyeed xorriyadeedu ay noqoto taas way dhamaan laakiin gobolada kale hadday ismaamulaan qabyaaladuna way iska soo dhamaan dadkuna dee ficil bay keeni way wada hagaagi kadibna Soomaalidu saas may ku marka ma isleedahay haddii maaragtay maamul goboleedyada noocan oo kale marka hore hoos laga soo dhiso dadka Soomaaliyeed ama maamulada kale dhamaantood ay isku imanayaan oo wax way wada qaybsan karaan wixii israba wixii dadkeedu go'aan ku gaareen ka Soomaaliland dadkeedii baa decision ku sameeyay inay la noqdaan xorriyadooda iyadoo way dhamaatay wixii hadii koonfur israacaysa waa meesheeda laakiin koonfur waxaaba u muuqataa walaalanka inay isbaarad ka jeceshahay inay xukuntaba mushkilada meesha taala iska daa wax kale dadkii masaakiinta ay qaxay wixii la siiyay adduunka ugu tabarucay baa la bilaqaysanaya marka maxaaba lagula darsanaya si loogu darsan karo dadka ka naxaynaya wax ku darsan kara aad iyo aad baa u mahadsantahay walaal khadka xiga ee barnaamijka ka qayb galaya markana aan fursad siiyo iyadoo barnaamijka cawaan uga hadlayno waxyaabaha ay soo kordhin karaan maamul goboleedyada cusub ee dalka Soomaaliya ka jira hello assalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga walaal magacaygu waa Cabdirasaaq xagee joogtaa London ayay ku soo dhaw barnaamijka waa ku dhaw barnaamijka markaan yani daraaseeyay arrimaha laga hadlayo ee maamul goboleedyada iyo waxyaalaha jira aniga waxay ila muuqataa ra'yiyan waa wax cadow oo loo meeri waa wax dhibaato ah waa wax ay ka dambeeyaan shisheeye iyo dhibaato ay ka dambeeyaan sababtoo ah waxaanu wada ognahay qarankeennii Soomaaliya markuu dumay waa guri duma nin walba oo tiir la baxay marka waa maxay tusaalaan dhibaatooyinka aad ka hadlayso adiga ku saabsan maamul goboleedyada waxa weeye anagu waxaan rabnaa nin kasta inuu u istaago oo iska xil saaro aqoon-yahanada waxgaradka culimo oo diinka dadka wax yaqaano inay u istaagaan Soomaaliya oo hala Soomaaliya meel kasta ha joogto waxay rabtaa haato kalama maaranto ilka wada jiray wax ku gooyaan ma garatay waa gartay waxaa Soomaalidu tiraahdaa shantaada farood oo gacantaada ku taala mid kala maarmaan falyarto haday ka goodo kuwa kale way u baahan yihiin oo wax ma qabsan karaan waa tahay aad baa u mahadsan tahay waxa weeye waxa wax lagu wada qabsadaa waa midnimo wada jir ilka wada jir bay wax ku gooyaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan wax tasamo bixadillah wala tafarraqu islaamka qaba dadka dhan oo dhahaya adduunka waxbaan ku qabsanaynaa community wax ku qabsadeen marka waxa community wax ma qabtaan isku wada jir isku walaaltinimo isgacansi ayaa wax lagu qaban karaa aad baa u mahadsan tahay inta khadka kale aan u gudbin carabay arrinta uu ka dhawaajiyay daawadaha ugu dambeeya ma isleedahay midnimadii Soomaaliya ayay dhaawacaysaa maamul goboleedyadan cusub maya total lama qabo sababta ula qabo waxa waaye midnimadii Soomaaliya 20 sano la raadinayay nin diidana male maamul goboleedyada hadda arkaysid tusaale waxa kugu filan hadda ku ag fadhiyo calanka Soomaaliyeed waaye Puntland madaxweynaha calanka wata calanka Soomaaliyeed waaye kan Galmudug madaxweynaha calanka wata calanka Soomaaliyeed waaye Hiiraan State calanka wata calanka Soomaaliyeed midna buu jiro kalena calanka wata calanka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ka jirto inay tahay dawladda Soomaaliyeed dhabta ah wasiiradeeda baarlamaanadeeda iyo xukuumadda dhan u jirto dhabta ah waxaan ku shaqeynayna waxay tahay kaliya aan wadno sidii bal aan deegaanadaas annaga u soo dhisi lahayn nidaam ayagoo ah loo heli lahaa dad lagala hadlo oo hadhow isu yimaada oo dawladdii dhexe ka wada qayb qaata sida la socoto dastuurka hadda la ansixin rabo wuxuu dhigayaa dawladda dhexe xildhibaanadeeda inay ka koobnaadaan ilaa 200 ama 300 inta u dhaxayso kadibna wuxuu dhigayaa maaragtay gobol maamul goboleed walba oo federaal in ilaa 10 xubnood oo kamid ah ay ka qayb galaan dawladda dhexe ee Soomaaliya marka runtii waxaan arkaa wax wanaag ah aad baa mahadsan tahay mar kale khadadka teleefanada aan dib ugu noqdo hello assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal iyo meesha aad joogto waxaan joogaa London magacayga waxa la yiraahdaa Qadra Ahmed Sheekh Qadra ku soo dhaw barnaamijka maxaa ku darsan lahayd waan dhawahay walaal waxaan ku darsan lahaa barnaamijka saddex arrimood baan rabaa inaan iraahdo mid waxaan leeyahay madaxda koonfurta qof kasta ahaadeen gobol kasta joogeen in ay dadaalaan wax way qaban karaan ay dadkooda wax u qabtaan
midda labaad waxaan leeyahay dadka ama maamul goboleedka samaystay ama degan hadda waxoogaa koonfurta ka nabadda roon in ay dadka koonfurta ah ama madaxdooda ay dhiirigelin siiyaan oo yiraahdaan well done oo waad dadaali kartiin waxbaad samaysan kartiin oo aysan xoogaa dadka niyad dilin oo aysan waa baaba'deen iyo waa iscunteen iyo waa isdhacdeen iyo niyad ka jebintaa badan inay naga daayaan haddaan koonfurta shicibkeeda nahay waxba nooma qabanayso haddii aysan wax kale noo awoodinna ay iska aamusaan صح kala go'a iyo tafaraarugana horta wax fiican ma aha haddii ay leeyihiin dadka samaynaya istaa maamul goboleedka waqti cayiman baan go'naanta wax ku soo ururinayna oo intaan kala googoyna marka hore si la isugu imaado baan kadib haddana soo noqonayna waqtiga go'an oo si lagu heli karo aan rajaynaynin hadda laakiin ilaahay naxariistiisa lagama quusto laakiin haddii la yidhaahdo soomaaliya ha kala goodo soomaaliya waxaan marka adiga waxaa u aragtaa maamulada hadda dhismaya inay ay hadafkooda tahay inay marka hore iyaga isnidaamiyaan kadib markay arkaanna soomaali oo midaysan ay wax la qaybsadaan yes hello waa ku maqlaa maamulada haddii ay og yihiin in laga soo noqon karo because hadeerba maamulada qaar baan aaminsanayn inay soomaaliya dib ugu noqdaan waana dhibaato adag kala go laakiin haddii waqti cayiman dadkii laysu keenkeenayo horta waa xal wanaagsan because haddaba wadamada magaalooyinka sida Puntland Somaliland xoogaa nabad yar baa ka jirta oo dadka anfacaysa haddii ay nabadaas oo kale mudug iyo galmudug iyo qoladii kale hadda iyaguna samaysmay xubin iyo xeeb haddii ay iyaguna sidaas oo kale sameeyaan oo kadibna markii nabadda lagu gaaro la isku darmayo waa wax fiican waa tahay aad baa umahadsan tahay salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam magacaaga walaal magacayga waxaa dhahaa cabdullaahi islaw intee joogtaa waxaan kaala hadlayaa London هاي عبد الله إسلام كسر برنامج قال الله سعطاء سيدا واركتا أديك معمول قبل الديادة والله أنا وحان واركا أرنتان أرنكا قدسان دكا سيدا مسيح بدن كودا سوطو وحواي سومالي وانقان انتاس لباتكا سنوحي كل جسد دبات فربضان ضدي من شيغانايو ايا دكا حسوقيا او بابئينايا او بركعينايا او إلا حدود ودبدا درسكا كداديي haddana ugu daba tagay ee ku baabi'inaya weliba dadkii Soomaaliya hadda waa la socdaa bidaan idaacada in la gaalaysiinayo oo gaalnimada dadka muslimnimo inta sheegano dadka muslim baan ka dhigana inta dhaano haddana gaalo gacanta aan u gelinayno waa dhibaatadeeda kale tan labaad Soomaaliya waa dowlad Afrikaana waa naqaana systemkeeda waa in military action lagu fuliyaa waa in ciidamo military la keenaa oo hubka dhan laga wada dhigaa oo awood military lagu qabsado wadankaas maxaa ula jeedaa islaam waxaa leedahay Soomaaliya suuragal ma aha inay ka hirgasho dowlad federaal ah oo maamul goboleedyo ku salaysan muslimiinta ay dhaqaale ku bixiyaan oo ay dadka shaqo helaan markay dadka shaqo helaana waxaa imaanayso maamul nabad ah iyo degenaansho ayaa la helayaa intuu wadanka gaajaysan yahay oo awood walaada ay sheeganayaan oo dadka la barakicinayo oo la baabi'inayo oo wadamo kale lagu shubayo oo wadamada kale ayoo gaajaysan oo dhibaataysan xabad iyo bambada oo la gaalaysiinayo waata islaamnimada ku koobnaano qodobka aan ka hadlayno caawa ee ku saabsan nidaamka dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira iyo aragtida dadweynuhu ay ka qabaan waa la soconaa waa inay raadsataa awood military oo u babac dhigi karto walaadadan waa tahay aad baa umahadsan tahay waa tahay intaan khadka kale u gudbin carabay arrimaha amniga dad badanaa ka dhawaajinaya maamul goboleedyadan meelo fara badan oo hadda ay ka jiraan amnigoodii waxbaa iska bedelay dabcan idinkana waa filayaa in aad ka mid tihiin dadkaas arrimaha amniga iyadoo la eegayo maamul goboleedyada waa loo baahan yahay maslada xilligan dalka ka jira runtii amniga markii maamul goboleedyada nidaamka hadda annaga aan sameynayno
waxaa ka midaba inaan sameyno ciidamo boolisa oo ku xiran linkina lale dowladda federaalka dadka Soomaaliyeed macnaha ama dadka hadda hadlaaya ama dadweyne badan waxyaabo ay ka hadlayaan waxa waaye maamul goboleedyadaan iyo dowladdii inay kala go'ayaan ama inay kala socdaan macnuhu saas maaha maamul goboleedyadaan iyo dowladdu waa isku xirnaanayaan isku xirnaantaasna waa wax oo link u dhaxay annaga ciidamo boolisan sameynayna kuwa daraawiishan sameynayna amniga dadka soo celiya kuwa waxaan sameyn doonaa xataa military oo maaragtay xuduuda annaga deegaanka aan sheegin inaan maamulku sameynayno wuxuu leeyahay xuduud ilaa 300 kilomitir dhan dowladda Itoobiya xuduudahaas waxaa la socotaa in dad Soomaaliyeed maalin walba ay ku dhintaan ama lagu laayo ama ribaadiyo isku duulo iyo wax la mid ah marka xiriir hadda mid ka dhaxeeya Itoobiya iyo idinka maamulkiina Itoobiya waa la hadalnay waana u sheegnay barnaamijkan wadno waan u sii sheegi doonaa insha Allah laakiin wax xiriir oo toos oo naga dhaxeeya ma jiro laakiin ma jiro laakiin waxa maadaama xuduud aan waxaan laba dowlad daris ah oo maaragtay aan muddo dheer darisayn dadka aan maamulka u sameynayna boqolkii 60 wuxuu ku nool yahay gudaha Itoobiya marka waxa qasabay in wada shaqeyn ay naga dhaxayso waa taa aad baa ma san tahay khadka telefoonka aan dib ugu noqdo hello assalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa rahmatullah magacaaga walaal ridwaan waxa la yiraahdaa maxamed xagee joogtaa dalka Holland ayay ku soo dhaw barnaamijka maxay tahay adiga aragtidaada ku wajahan nidaamka maamul goboleedyada ridwaan horta barnaamijkan maamul goboleedyada la dhisayo runtii waa nidaamkayga waxa uu la mid yahay nidaam ciidamada madaniga ah ee magaalada Muqdisho laga horgelin jiray taasina waxay xubin ay ka tahay gobol waliba ama xaafad waliba inay halkeeda ama deegaankeeda ay nabadaysato taasina waa arrin wanaagsan waan aragnay markii Muqdisho la joogay dagaaladii iyo inta isbaarooyinka ay socdeen xaafad waliba waxay samaysatay nidaam madani nidaamkii madanina dadka isbaarada iyo waxayna way qaadi jireen dadka maamul goboleedyada sameysana ayadana waxay la mid tahay ayaga gobolkooda iyo deegaankooda ay nabadeynayaan taas ay la mid ah tan labaad aan weydiinayo ninka madaxweynenimada deegaanka beledweyne ama gobolka Hiiraan waxa degan qabiilo badan dadka deegaankaasi ma taageersan yihiin ayagoo kala gudisa mararka qaar colaada dhaxmarta yaa soo doortay xaguna ka soo gala magaalada beledweyne ama gobolka Hiiraan dadka deegaanadoodana waa la yaqaanay عربي طبعا ومدحوينها مامولك gobolka bartamaha Soomaaliya waa la socotaa baan filayaa waa la socdaa laakiin balse dadka deegaanka waxa su'aashaasi ayaa taagan maraan qadka telefoonka ku xiriir waxay leeyihiin annaga war uma kala Soomaalida qurbaha joogto hadday madaxweynenimo ay sheegtaan taasina waa mid colaad ay sii badan doonto waa taa u gudbiyo aad u maasay walaalkiis runtii horta deegaanka oo Hiiraan hadda ma matalay laakiin magaca bartamaha Soomaaliya oo soo hosgelaya Hiiraan bartamaha Soomaaliya waxa la dhahaa gobolada dhexe Soomaaliya maamul kale oo ka jira waxa ka jira laba maamul kale san filayo marka anaga hadda deegaan fiirs anaga waxaan leenahay 3 face face-kiga koowaad wuxuu ku saleysan yahay deegaano qaasa oo ah maaragtay 6 magaalo 3 magaalana qabaa'ilka maaragtay aan ka soo jeedo ay maaragtay si gooni u deegaan 3 magaalana qabaa'ilka kale Soomaaliyeed ay maaragtay la deegaan ilaa haddana wada hadal fiican noo socdo qabaa'ilada kale anaga aan is ognahay aan iska warqabnana fiiskeyga labaad waxa weeye muxuu ahaa ay sheeg bartamaha Soomaaliya oo dhan dadka qaar waxay leeyihiin gobolada hadda adiga aad madaxweyne ahaanta lagu doortay meelaha ugu khatartan ay ku jiraan marka laga hadlayo nidaamyo kale oo fara badan ka jira bartamaha Soomaaliya mid walbana midka kale inuusan ogolayna laga yaabaa see xal lagu heli karaa runtii waxyaabaha aan wadno markii hadda aan ku guuleysano san ku sheegay 6 magaalo ugu horeysa muddada sanadka ugu horeeya horta nidaamka hadda anaga waxa la doortay waa 3 sano inaan wado 3 sano waxaan doonayaa inaan gaarsiiyo 3 marxaladood oo kala duwan hadduu Ilaahay ii sahlo marxaladda koowaad oo ah 6 magaalo inaan ka gudbiyo oo 6 magaalo horta dadka degan ay soo afgartaan soo raacaan dib u heshiisiinta hadda aan ku sheegay intaan u qabto ay ku heshiiyaan nidaamkii kadib inaan gobolada dhexe waxa ka jira ilaa 5 maamul sida la socoto waxa ka jira Galmudug waxa ka jira Xubin Yaab waxa ka jira annaga oo Somali Central State ama dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya Hiiraan State ka jiro waxa ka jira muxuu ahaa Hiiraan and Midland shanteedaas inaan isku nimaadno waa isku naqaanaa waa isku garanaynaa aan ka wada hadalno sidii dadkan nidaam loogu sameyn lahaa gobolada dhexe waxa jira qabaa'ilo kale oo aan shanteeda midna ahayn oo gobolada dhexe wax ka deega
oo Soomaali ah ayaan ku tixgelino dib u heshiintaas aad baa mahadsan tahay mar kale khadadka telefoonada dib ugu noqda hello assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullah magacaaga walaal magacayga diiriya la yidhahdaa waxaan ka hadlayaa riyaad sacuudi arabiya haye diiriya kusoo dhawo barnaamijka waa maxay aragtida adiga aad ka qabto nidaamka dowlad goboleedyada ee dalka xilligan ka jira waxaan ka qabaa had iyo jeer waxaa isweydiisaan su-aalo maamul goboleed nabadgelyo sidee loo heli karaa Soomaaliya haddaba su-aashu waxa weeye dib ma isu weydiiseen in Somaliland oo la ictiraafo mooyaane aan dhibaatada koonfur ka jirta aanay xalilmi karayn waxay ila tahay inaad cinwaanka ka baxday waayo kama aan bixina de waa had iyo jeer waxaasaan idinka maqlaa idinka oo dadka arrintaan ka hadlayna waxay tahay nidaamka maamul goboleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya maaragtay sida weyn lagaga dhawaaqayay marka adiga nidaamkaas ma taageersan tahay mise waa diidan tahay waan diidan absolutely waxaan diidanahay ilaa sida nabadgelyo lagu heli karaa ama nidaam lagu heli karaa inay tahay mid had iyo jeer xaqiiqda ka fogtihiin yaa jeceshaa marka inaad su-aasha weydiisid carabey baa ila fadhiye wal isagaan weydiinaya maxaa jeceshaa inaad weydiisid ku yimaada had iyo jeerba maxaa jeceshaa inaad weydiisid adoo raalli ah anigoo raalli ah waxaan jecelahay inaan weydiiyo sidee loo heli karaa ama maamul goboleedku siduu u saxmi karaa ilaa ay timaado ictiraaf Somaliland oo koonfur ay tiraafto oo dabeetana iyaga oo laba dawladooda wada hadal ku yimaado isku afkartaan waa tahay waa filayaa qodobkaas inaan marka hadli doono ku saabsan Somaliland iyo ictiraaf Soomaalidu ay siiyaan laakiin hadda ma mid dabcan midaan ka hadlayno aad baa u mahadsan tahay khadka xiga ee barnaamijka ka qayb galaya aan u gudbo hello assalaamu calaykum waa tahay usoo noqdo carabey intaanay dawadayaasha khadka soo gelin nidaamka federaalka ee dastuurka qabyada hadda ku qoran dabcan sida aad sheegtay waxaa loogu talagalay in gobolada Soomaaliya ay maamul goboleedyo yeeshaan dan la isugu yimaado dowlad dhexe oo maaragtay xoogan oo federaal ah sooma adkayn arrintaas la gaaro marka la eego xilligan dowladdii dhexe dee maamuli lahayd maamuladaas oo dhan dhibaatooyinka ku horgudban marka aad eegto iyo siday u shaqeyn la-dahay darteed runtii dowladda dhexe dhibaatooyin badan baa ka dhex jira dhexdeedii maaragtay dhibkana waxa ugu badan waxaa waaye golo baarlamaan oo maaragtay runtii aad inuu tiro badan yahay aan mar walba wada joogin isqabqabsi iyo maaragtay kooxo badan oo isdiidan dhexdooda ka jiro laakiin shalay ugu dambeysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ka codsadeen guddiga dastuurka inay soo ansixiyaan muddo 30 maalmood gudahooda dastuurkan dowladduna saan la soconno bisha Agoosto sanadkan ayuu waqtigeeda ku eegay waxaa qasaba marka intaan waqtiga la gaarin in dastuurkan la baas gareeyo dastuur cusubna maaragtay waddanka idinka marka qorshihiina adaatiin maamul goboleedyada ma in baarlamaanka ay xubno ka noqdaan dad matalaya maamul goboleedyada mustaqbalka markii dastuurka la aqoonsado qasab saas ay noqonaysaa dowlad goboleedooda 10 qof oo ayaga matalaya 10 qof oo ayaga matalaya ay yeelanaysaa aad baa mahadsan tahay qofka ugu dambeeya aan fursad siiyo aragtidiisa dhiibanaya hello waa tahay qofkaas ma suuro gelin aad iyo aad baa u mahadsan tahay maxamed xaashi cabdi carabey gudoomiyaha ama madaxweynaha maamulka gobolka bartamaha Soomaaliya oo barnaamijka maxay kula tahay maanta marti igu ahaa iyadoo barnaamijka aan uga hadlaynay nidaamka federaalka ka sokow maamul goboleedyada iyo waxyaabaha ay soo kordhin karaan dhammaan daawadayaasha ka qayb galay ayaan u mahadcelinayaa iyo farsamo yaqaan Cabdiqani waa Ridwaan Xaaji Cabdi Walow idin leh nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh